بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ملك سوجتان كسر بدا برنامج جارة أو نوها لنا حلقان xaaladda guud ee dowlad goboleedka Jubbaland oo ay maanta magaalada Kismaayo ka dhaceen doorashooyin laba ah oo garab socday oo ay dadka qarkood ku wareersanayeen xilligan waxa barnaamijkan daqiiqadaha kooban inta uu socdo waxa uu hadal doona doorashooyinkaasi sida ay yihiin sidoo kale sida guud magaalada Kismaayo iyo mowqifyada kala duwan ee UN-ka iyo sidoo kale dowladda federaalka Soomaaliya ee ka taagan doorashooyinkaasi iyo sida wax u socda xilligan waxa istuudiyaha la fadhiya تفترها تلفزيون قرن الصومالية فيصل موسى محمد فيصل صور واو حالة جود مجالات كسمايو سجار وقل دونا جود هان جبلان سجارة ما أنت محاس عنيا. ويا عبد الناصر هذا وما سنتهي عديق إذا وذا شبه جبلان سيدا دوقتها معلومي ودن بي أم مدنك ودن بي وعاكجري أبابلك حالة دور شوين لو قلت لك لأن كذا عن ديان كاس ولا دوري إن مامل كتيرم كيس دماضي مامل بدلا أما هو جام بدلا وسيدا برلمانكي iyo golihii fulinta oo madaxweynaha ugu horeeyo in la doorto gudiyaa jiray oo howlahaas mataqaanaa ka shaqeynayay oo dawladii mataqaanaa waqtigeeda dhamaaday iyo madaxweynihii markaas maamulkaas hogaaminayay ay iyagu horkacayeen hanaanka ama habraacyada kala duwan ee doorashooyinka Jubbaland loogu talagalay runtii wixii markii ay soo gabagaboobeen maanta magaalada Kismaayo waxa ka dhacay doorashooyin markii doorashooyin la yiraahdana dabcan hal ma ahan laba doorasho ayaa ka dhacday magaalada Kismaayo doorashooyinkaas oo runtii midna ay ahayd madaxweynihii hore ee maamulkii waqtigiisa dhamaaday maxamed islaam axmed madoobe ayaa lagu doortay oo xildhibaano taageersan mid kamid ah xildhibaano taageersan ay isugu yimaadeen ay doorteen dabcan musharaxiin baa la tartamayay oo musharaxiinta mid kamid ah ay ahayd haweeney runtii 750 cod gaaraya ayaa lagu doortay halka qofkii kale la tartamayna 710 cod kaliya uu helay dhinaca kale waxa magaalada iyadana ka dhacday doorasho kale oo sida wararku lagu xaqiijiyay lagu doortay Cabdirashiid Maxamed Xidig oo isagana loo doortay madaxweynaha Jubbaland taas oo u muuqanaysa in laba madaxweyne la iska dhinac doortay waxa ay taas sidoo kale sii muujinaysaa in wareer badan uu ka taagan yahay habraacyada kala duwan ee loo maray doorashooyinkaas oo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dhammaan hay'adaha la shaqeeya ee caalamka ay hore uga hadleen arintaas ayada marka magaalada Kismaayo maanta waxa ka dhacay laba madaxweyne ayaa la iska dhinac doortay taasina waxa ay walaac aad u xoogan sii gelinaysaa dadweynaha ama shacabka deegaanada Jubbaland guud ahaan maadaama horey walaac looga qabay arimaha doorashooyinka Jubbaland inaysan ku socon habraacyada saxda ah isla markaana baalmarsan dastuurka dalka iyo shuruucda dalka u degsan taasina waxa ka dhalatay in maanta laba madaxweyne la iska dhinac doorto runtii hadalhayn aad u xoogan ayaa ka taagan guud ahaan wadanka doorashadana waxaad u moodaa in ay aad iyo aad mataqaanaa uga saameyn badisay doorashadii taaramkii hore dhacday ee isla Axmed Madoobe lagu doortay waya intan qariyooyinka iyo waxa ka yiraahdaan galin dowladda federaalka Soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha oo xilsaaran arrimahaasi ka hor doorashooyinka iyo baarlamaanka labada dhinac waxa meesha ka jira laba baarlamaan oo kala duwan laba xildhibaan oo kala nooc ah oo labada madaxweyne maanta la doortay ay kala hogaaminayaan waxa jira laba guddi doorashooyin dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha maxay ka tiri runtii dowladda federaalka Soomaaliya wixii maanta ka dhacay wali kama hadleen oo wax war kama soo saareen laakiin mowqifka dowladda hore ayay u xadeysay oo dhowr mar oo kala duwan ayay ka soo saartay war saxaafadeedyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta war saxaafadeedaas waxay ku cadeysay in aysan aqoonsan doonin natiijo walba oo ka soo baxda doorashooyinka ka dhaca Jubbaland iyada oo u sababeysay in la baalmaray dhammaan habraacyadii iyo shuruucdii kala duwanaa ee loogu talagalay ama hanaanka doorashada mataqaanaa loo maamulayay sida loo soo diyaariyay dhammaantood dowladda aad bi xasaasiye u qabtay wayna cadeysay mowqifkeeda inaysan marnaba ku qanci doonin natiijo kasta oo ka soo baxda doorashada ka dhacaysa ama ka dhici doona Jubbaland sida maanta dhacdabana laba madaxweyne ayaa meesha lagu doortay hal mar ma ahayn ilaa 3 mar oo kala duwan ay wasaaradda arrimaha gudaha arintan ka hadashay iyada oo si aad iyo aad ugu adkeenaysay in mowqifkeeda dowladda yahay noocaas natiijo aysan aqoonsan doonin isla markaana dowladda falcelinteedu ay noqon doonto wixii ka dhacay Jubbaland inay aragto kadibna dowladda wixii falcelina ay qaadato iyada waya UN-ka qaramada midoobay arintan ma ka hadleen maxay iska yiraahdeen wallahi waa UN-ka saasoo kale hay'adaha taageera Soomaaliya
ayay mataqaanaa ka mid yihiin UN-ka oo dabcan wakiilkoodii war-saxaafadeedka uu soo saaray James Swan waxa uu ku cadeeyay ama uga hadlay habka doorashadaas inay walaac badan laga qabo sida ay doorashooyinkaas maamulkooda iyo diyaarintooda iyo habka ay u socdeen iyo soo xulistii xildhibaanada oo dabcan ergooyinka markii ay soo xulayeen doodo badan ay ka taagnaayeen waxaana moodaa in si degdeg ah xulistaas ay ku dhacday baarlamaankii si degdeg ah wixii oo dhan degdeg ay ahaayeen war-saxaafadeedkaas waxaa lagu sheegay in khatartaas aan loo bareerin isla markaana wax heshiis ummadda dhan ay ku tahay halkaas la keeno loona baahan yahay in la dhageysto oo mataqaanaa la maqlo hadalka dowladda federaalka ah iyo dhowrka mar ay ku celisay ay ka hadashay waxa ay sheegeen in aysan suuragal ahayn in kala tag iyo xaalad siyaasadeed darro ama xaalad siyaasad oo aad u qalafsan inaysan Jubbaland ka dhicin isla markaana qaramada midoobay aysan iyaduna aqoonsanaynin wixii natiijada halkaas ka soo baxa marka mowqifka dowladda mowqifka qaramada midoobay iyo hay'adaha kale ee saaxiibada la Soomaaliya waxa uu mar walba u dhawaa mowqifka dowladda federaalka Soomaaliya ay taagan tahay taas oo ku saleysan markasto in la diidanaa hanaanka loo marayay doorashooyinka iyo diyaarintooda xalka guud ee magaalada marka la eego saddexda cisho soo dhaaf si gaar ah xalay iyo saakay magaalada guud markaan indheeday oo xog wareysi fiican la yeelatay oo xuraan sameysay maxaa ku soo baxay shacabka iyo si guud magaalada amnigeeda soo xalay saakay ugu weyn oo magaalada ka tagnaa karo waa xaalad amni runtii garoonka diyaaradaha ayaa la hakiyay wax diyaaradaha oo dowlamaadi ah kama jirin garoonka magaalada Kismaayo oo ah isha ugu muhiimsan dhinacyada kala duwan oo mataqaanaa wajigii magaalada ama halkii albaab ugu weynaa ee magaalada laga soo galay ahaa dowlamaadyo kala duwan ama kuwa uga imaanaya wadamada kale ha ahaadaan sida Kenya iyo diyaaradihii ka imaanaya kuwii ka baxay gobolada Soomaaliya ee caasimadda ay ka mid tahay haba yaraatee wax dowlamaad ah kama jirin saas oo kale waxaa la xiray guud ahaan magaalada bandow ayaa saarnaa ciidamo badan ayaa magaalada mataqaanaa maalmihii lasoo dhaafay aad uga howlgalaya oo gaaf wareegayay maantana maadaama magaalada laba qayb doorasho ka kala dhaceysay amniga si weyn ayaa loo adkeeyay oo ciidanka halkaa jooga markastoo waa muhiim in amniga la adkeeyo oo amniga uu sugan yahay laakiin waxaa istaagay dhaqdhaqaaqyo kala duwan ganacsigii baa istaagay qaybo ka mid ah isu socodkii dadka istaagay magaalada oo dhan waxaa dadka isha ku hayeen degtana ay u taagayeen waxaa mataqaanaa ka soo cusboonaan doona ama waxaa ka soo bixi doona siyaasadahan oo hadda kala cadaaday in magaalada laba doorasho ka dhacday laba madaxweyne taasna ay fasaraad kale u baahneen oo khilaaf siyaasadeed oo cusub oo Jubbaland ay wajahayso uu noqonayo marka xaaladda amniga aad bay u adkeed laakiin taas ayaa saameyn ku yeelatay dadweynaha degan magaalada Kismaayo oo dhaqdhaqaaqoodii dhinaca nolosha oo dhan taabatay oo si weyn u saameysay habtabinta saxaafadda ka waran maadaama wax cusub ay yihiin waxaan oo weli aan ka dhicin dalkeena Soomaaliya in hal meel laba madaxweyne laga kala doorto habtabinta saxaafadda ka waran ka wallahi warbaahinta iyaga iyo policy ay ku dhaqmaan ay ku xiran tahay oo mataqaana warbaahinta qaar si caadi u tabinayeen warbaahinta online-ka ama website-yada kala duwan waa qorayeen arintan iyada ah ilaa gobolka geeska Afrika wargeysyada ka soo baxa Kenya kale warbaahinteeda aad ay u hadlayeen maanta doorashooyinkan Jubbaland maanta labada doorasho ee ka dhacday maalmihii la soo dhaafana hadalhaynta doorashooyinkan aad bay ugu badneed Kenya sida la socoto waxay ka mid tahay wadamo ay Soomaaliya waxyaabo qadiyado ay isku hayaan ay ka mid tahay marka waxaad moodaa in si ay faragelin ugu lahayd doorashooyinka ka taagan ama ka dhacay Jubbaland hadda oo iyaguna hadda sida muuqata khilaafkooda la soo baxay banaanka la yimid marka dowladda federaalka arinta iyada wax jawaab kama bixin laakiin kaliya wax muhiimka ah waxay ahayd in la ogaado barnaamijka isaga ah doorashada meesha uu ku soo dhamaan doono oo haddana laba madaxweyne hadii la iska dhinac doortay waxay u baahan tahay in xal wax naqan karo la raadiyo iyadoo wax sharciga loo aqoonsado aysan naqanin doorashadii maanta ka dhacday laakiin xal ka duwan oo lagu badbaadiyo maamulkaas oo dabcan hay'adihiisii ay dhisan yihiin waxa kaliya meesha isku hayaan ay dadka hoggaanka ama mataqaanaa la rabo in masiirka dadkaas ay ka shaqeeyaan marka
aad iyo aad ay mataqaanaa wuxuu ahayd warbaahinta aan lahayn xooggan. ugu dambeyn dadka qaar waxay aaminsan yihiin amaba jirtaba in madaxweyne waa axmed islaan axmed madoobe oo maanta doorashadii qaybtii koowaad si lele ku guuleystay halka midda kalena uu leeyahay cabdirashiid ku guuleystay marka axmed madoobe dadka qaarkood waxay leeyihiin dadka tartamaya ee labada qofood ah midna ay dumar tahay midna unin ahaa dad siyaasiyiin u qalma ama la miisaan asiga ma ahayn oo dad qaar waxay tilmaamayeenba in hayaan dad isaga u xagaldeecinaya oo qaarkood doorashada ay mid hore loo qorsheeyay u diyaarsanayd taas si gaar ah warbaahinta mu hadlayeen waxa ugu weyn dhinaca kale xidigba waxa ugu weyn u fiirso waxa ugu weyn haddii doorashada maanta labadan qof oo midba madaxweyne sheegtay in loo doortay haddii ay hal meel ka dhici lahayd xaaladda way ka doonaa lahayd sida hadda ay tahay kaliya waxaa markaas laisku qaban lahaa natiijada doorashada iyo sida ay u dhacday laakiin hadda qolo kasta meesheeda ku qabsatay qolo kasta waxay sheegtay in la doortay madaxweyne tahay marka haddii magaaladii laba doorasho ka dhacday ninka mataqaanaa axmed madoobe iyo tiimkiisiina ay dhahayaan madaxweynaha jubbaland axmed madoobe loo doortay cabdirashiid xidig iyo tiimkiisa dabcan xildhibaano inay kala yihiin xildhibaanadaasna habraac iyo doorashooyin iyo hanaan kale lagu soo xulay halkana habraac iyo doorasho kale lagu soo xulay marka meeshaa moodaaba in laba dowladood ay ka kala dhalatay marka u soo laabatay dadka oo siyaasadda kala qaybgalaya ama dadka murashaxiinta ah markaad fiirisid axmed iyo cabdirashiid oo kale labada qof oo ugu waaweyn oo ugu culus oo ka qaybgalaya ahaayeen inta kale dad oo siyaasadda hore ugu soo jira qaarkood u ahaayeen laakiin buujiyada badanaa ka qaybgalaya musharaxiinta ahaa ma ahayn dad siyaasadda aad iyo aad dad loogu bartay doorashada hadda axmed madoobe oo kale haweeney baa ka qayb gashay nin wasiir kasoo noqday wasiir ku-xigeen dhowr mar kasoo noqday xukuumadda federaalka ah baa ka mid ahaa dadka musharaxiinta ah marka dad oo hadda si weyn ayagana loo sii hadalhaya ma ahan laakiin cabdirashiid iyo axmed ayaa isha si gaara u haysay marka musharaxiintii halkaa isku haya loo fiiriyo way ugu dambeyn tafsir adigoo khibradaada kaashanaya maxaa la gudbaa shacabka reer jubbaland iyo shacabka Soomaaliya guud ahaan marka la eego in magaalada Kismaayo aad og tahay inta tan qaadi karto in konton iyo dhowr xildhibaan oo kala duwan iyo in laba madaxweyne iyo baarlamaan kala duwan iyo guddiga doorashada meesha laga sameeyay Kismaayo oo taqaano tagtay maxaa ka dhalan kara halkaas iyadoo hadda lagu dagaal Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliya dhinaca iyo maleeshiyaadka argagixisada al-shabaab arinta ayada ah dhowr arimood ayaa ku hoos jira horta wadanka oo dhan ayay saameyn ku leedahay wadankan hadda waxaa ka jirta dowladda federaalka ee Soomaaliya mas'uuliyad kasta oo wadanka mataqaana ama xaalad kasta oo wadanka ka taagan marka ugu dambeysana dowladda federaalka ayaa iskale ayada ayaa laga rabaa in xal ay u raadiso sida ay doontaha ku keento taasna dabcan waa dowladda mas'uuliyadeedii way ka hadli doontaa go'aano baa ka dhalan doona tallaabooyin baa la qaadi doonaa oo wax meeshoodii lagu kala tagay oo cid kasta maanta intii ay ku dooratay magaaladii labaha loo kala qaybiyo u kala xirnaato ma noqon doonto waxaan rajaynaynaa anaga dhan u rajaynaynaa dee xal waara oo aan dhibaato kale u keenin dadkaas iyaga ama magaaladaas oo muddo dheer dhibaatooyin soo wajahaysay in la helo waxyaabaha khatarta oo aad looga walacsan yahay waxaa ka mid ah Jubbaland markaa u fiirisid oo 3 gobol ka kooban gobol dhan oo ka mid ah gacanta mataqaanaa maamulka oo ka maqan yahay oo argagixisada ayaa gacanta ku haya magaalada Kismaayo waa ogtahay dhowr mar waxaa la isku dayay in amnigeedii dhibaato loo geysto la kala daadiyo qarax laga geystay dad badan oo masaakiina lagu laayay waxa ugu weyn oo dadka dhan ay sida daran u fiirinayaan waa arinta amniga oo u baahan in maadaama juhdi dheer iyo waqti dheer iyo dhaqaale aad u badan lagu soo bixiyay sidii amniga magaaladaas uu noqon lahaa mid sugan sidii dadka mid ay isku halleen karaan uu noqon lahaa dadka inaysan walaac badan ay ka muujinayaan arinta amniga inay khatar u keento arintan iyada ah waxaa isla amniga laga yaabaa inay dhibaato u geyso ama khatar uga timaado dhinacyadana iyaga maanta la kala doortay iyagaa laga yaabaa in khatar amni dhexdooda ay ka dhalato sida dadka qaar ay qabaan sida dadka siyaasadda oo darasa qaarkood ay muujiyeen fafaalo fiicanna aad loogama bixinin oo haddii horay teeramkan oo dowladda hadda jirta teeramkii ka horreeyey dowladdii joogtay sidan oo kale ayaa ka dhacday baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa qaraar ka qaatay oo cod geliyay oo sheegay in baarlamaankaas Jubbaland la sameeyay inaan la aqoonsanayn laakiin markii ugu dambeysay haddana waa la isku yimid wada hadal laga galay xal baa la raadiyay sidii hawshii iyadoo la fiirinay
danaha ay ugu muhiimsan yihiin dhinaca amniga marka shacabka Jubbaland waxaa la gudboon wadanka dawladdu leeyahay dawladooda inay aaminaan iyadana ay ka sugaan kuna taageeraan wixii ay la timaado aad ma siiyay tafsiraha telefishinka qaranka Soomaaliya Faisal Muuse Maxamed oo kaasiha oo tafsiil kooban naga siinayay xaaladda guud ee magaalada Kismaayo iyo dowlad goboleedka Jubbaland oo laba doorasho kala duwan halkaas ka dhaceen oo la kala doortay xidig iyo Axmed Madoobe oo laba madaxweyne ee dowlad goboleedka Jubbaland xilligan ay kala waqeen xildhibaanada laba dhinac ah oo iyagana isdiidan halkaas ayaa barnaamijka ku soo hakeynaya waxa wararka dambe iyo barnaamijyada kala socon doontaan xaaladda guud ee isku bedesho iyo mowqifka dowladda Soomaaliya iyo guud ahaan beesha caalamka ka istaagaan arrimaha doorashooyinka Jubbaland ee ka dhacay